khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay qarax ismidaamin ahaa oo maanta ka dhacay wadada 21 Oktoobar ee degmada Waabari kaasi oo jugtiisa laga maqlay qaar ka mid ah degmooyinka magaalada Muqdisho. Qaraxa ayaa waxaa la sheegay in uu ahaa gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa kaasi oo lagu weeraray gaari ay wateen saraakiil ka tirsan hay'adda UN-ka xilli ay marayeen meel u dhow wadada aada ee Laboorka ee ka baxda dhinaca wadada 21 Oktoobar. Goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in qaraxa ay ku dhinteen 4 ruux oo isugu jira askar ilaalo u ahayd saraakiisha ka tirsan hay'adda UN-ka iyo sidoo kale dad shacab ahaa oo wadada marayay halka dad kalena ay ku dhaawacmeen. Sawirro laga soo qaaday goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa muujinayay gawaari nooca raaxada ah oo qaraxa uu burburiyay, waxaana cisbitaalada qaar ee magaalada Muqdisho la geeyay qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxaasi. Laamaha amniga dowladda Soomaaliya ayaa la filayaa in saacadaha soo socda ay faahfaahin guud ka bixiyaan qaraxa iyo sidoo kale khasaaraha uu geystay. Yaxya Farxaan Aadan, warbaahinta Sooyaal, magaalada Caabud Waaq.